السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمانتينا meel walba aad joogtaan hadda kadib insha Allah channelka waxaan ku soo daraa barnaamijyo kala duwan dhacdooyinka wiiga ugu dambeeyay ama 10 maalin 30 maalin ugu dambeeyay ayaan soo qaadanaa insha Allah kadib waxaan ka soo sameynaa muuqaal oo sida wararka oo kale ah balse wararka waxay ahaayeen sheekooyin oo mar hore dhacay ayay ahaayeen balse midkan wuxuu noqonaa dhacdooyin oo mar dhow dhacay macnaha dhacdooyinka oo trending ah dhacdooyinka oo ayaantan socdaan iyo sidoo kale barnaamijka ama muuqaalada oo hal qiso dheer ah taasna waan sii wadaa macnaha barnaamijka ama channelka waxaad ku arki doontaan muuqaalo kala duwan iyo barnaamijyo kala duwan insha Allah idinka waxaad ku dadaashiin like mar walba muuqaalka like-giis bato YouTube-ka uu sii faafina marka waxaan rajeynayaa inaad ka heshaan daawasho wacan makhaayad ku taalo dalka Holland ayaa waxay bilowday inay adeegsato robot makhaayaddan waxay ku taallaa koonfurta dalka gaar ahaan magaalada Maastricht makhaayaddan oo la yiraahdo Dadwan ama Dadvan waxay adeegsataa saddex robot oo la yiraahdo Amy Walker iyo James saddexdood waxay ka shaqeeyaan makhaayadda maxaa yeelay dadka waxay cabsi ka qabaan cudurka faafay makhaayadihiina waxaa la rabaa in la furo balse dadka ma rabaan inay isdhexgalaan marka sida darteed ninka oo milkiilaha makhaayadda wuxuu keenay saddexdan robot ayuu keenay kadib wuxuu ka dhigay sida shaqaale oo kale cabitaanka ayaa loo dhiibaa kadib wuxuu u geenaa qofka dalbaday kadib markuu geeyo wuxuu ku leeyahay cabitaankaadi waa kana kusoo dhawaaw ama welcome kadib wuxuu raacsiinaa saxanka ka qaado macnaheed saxanka ha iga qaadin robotka saxanka uu ku dhegan yahay galaaska waa la saaraa meeshu markuu tago wuxuu ku leeyahay saxanka ka qaado saxanka iga qaadin taasna macnaheed robotka gacmo ma qabo saxankaas ayaa la saaraa saxankaas ayuu kugu keenaa arrintan ama fikraddan adeegsiga robotka waxay ka bilaabatay dalka Shiinaha sanado ka hor balse maanta waxaa bilaabay makhaayado badan oo ku yaala wadamo kala duwan inay adeegsadaan robotka nin xirnaa muddo 37 sano ayaa waxaa laga yaabaa inuu ku guuleysto barnaamijkan oo la yiraahdo barnaamijka tartanka oo la yiraahdo American Got Talent ninkan waxaa la yiraahdaa Artish Williams 1982 ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu haweeney kufsaday kadib waxaa lagu xukumay xabsi daa'im ayagoo heenin caddeyn rasmi ah macnaha waxay ku xukumeen xabsi ayagoo heenin ama ayagoo ka heenin caddeyn 37 sano kadib ayaa waxaa imaaday urur difaaco dadka dulmi ku xiran ururkan waxay sameeyeen arrintiis ay baaritaan dheer ay ku sameeyeen kadib waxay caddeeyeen inuusan lahayn dembi macnaha ninkan dembi ma lahan soo daaya inkastoo uu khasaaray 37 sano ayuu xirnaa kadib hadda ayaa waxay ku leeyihiin dembi ma lahan hadda la cadeeyay inuu dembi lahayn cala ay taxal ninkan 37 sano kadib ayaa la soo daayay kadib wuxuu bilaabay inuu fiirsado barnaamijkan oo la yiraahdo America Got Talent ayuu bilaabay inuu daawado uu ka helay kadib wuxuu ka qayb galay barnaamijkii ayuu ka qayb galay hees ayuu qaaday codkiis ayaa laga helay dadkii way taageereen sidoo kale ninka heesta iska lahaa ayaa faaliyay marka hadda website-yada warbaahinta waxay u maleeyaan inuu asaga ku guuleysan doono sanadkan barnaamijkan oo la yiraahdo Got Talent American Got Talent dalka Ingiriiska gaar ahaan waqooyiga dalka Ingiriiska ayaa nin waayeel ah loo dishay saa ogtihiin socodka waa caafimaad marka qofka markuu waayeel yahay inuu socodkaas uu u fiican yahay marka ninkan iyo xaaskiisa mar walba ama galab walba ay socon jireen duurkaas ay galayaan waa iska socon jireen marka ninkan asaga iyo xaaskiisa ayagoo wadada iska socda iska sheekeysanayo baashaal ku jiro ayaa waxaa soo weeraray group oo lo ah ma ogi group markii badan tahay ma ogi waxay lahaay cala ay taxal group oo lo ah ayaa hal mar ku soo orday korkoray u qaadeen meeshuu ku dhacay xaaskiisa way ku istaagtay asagina waa lagu istaagay kadib dadkii ayaa arkay dadkii meeshii maray ayaa arkay way u soo ordeen waxay waceen ambalaaska wuu imaaday wuxuu qaaday ninkii iyo xaaskiisa isbitaalka inta la gaarin ninka ama odaygii wuu dhintay xaaskiisana dhaawac yar ayaa gaaray haweeney oo la yiraahdo Kili ayaa waxay codsatay inay iska furto ninkeed waa ninka u sabab ah dhibaatada hadda ka socoto dalka Mareykanka marabi inaa magaciis ku dhawaaqo علشان YouTube ka naftayna oo keeneen xayeysiinta inaga xiraayaan
cala ayta xaal waa fahmi kartaa qofka aan ka hadlaayo. haweenaydaas ayaa waxay dalbatay inay iska furto ninkeed waa qofkaas oo kii ku istaagay jilibka madax u saaray. haweenaydan waxay codsatay, maxkamadda ay aaday, waxay codsatay inay iska furto. waxay dhahday wuxuu u dhaqmay qaab qaldana ayuu u dhaqmay, taasna way ku xumahay inay dhacdo, dadka madow inaa saas loo gala waan ku xumahay, marka waxaan rabaa in aan iska furo. dadka qaar waxay dhaheen haweenaydan waxay u baqday nafteeda, maxaa yeelay dadka hadday ogaadaan inay tahay ninka dilaaga xaaskiisa inay tahay, way imaanayaan, laga yaabo guriga inay ku gubaan ama gurigeed usoo galaan oo dilaan. marka dadka qaar waxay dhaheen nafteeda ay u baqday, sidaa darteed way iska furtay. waxay dhahday ammaan halay siiyo, macnaha ninkaas iyo aniga waan kala baxnay. run ahaantii haweenaydaas way dhahday hadalkaas, waxay dhahday aniga ninkaas waa iska furay, aniga iyo hooyaday iyo aabbahay ammaan halay siiyo. balse dadka qaar waxay dhaheen waxay ka baqday inay bixiso diyo, macnaha ninka la dilay familkiisa haddii ay codsadaan diyo waxaa laga qaadaa ninkana iyo xaaskiisa yurub iyo maraykanka hal lacag waay, wuxuu asaga leeyahay ayadana way leedahay, wuxuu ayada leedahayna asagana wuu leeyahay. marka waxay ka baqday haddii diyo laga dalbado wixii asaga laga qaadi lahaa labadood ayaa laga qaadaa. taas sidaas ay u fikirtay, inkastoo ay xaaskiisa tahay waxaa laga rabay caadi, khalaas khalad ayaan galnay, waa isla bixinaynaa. balse waxay dhahday may, dhibaatadaas asagaa keenay, meeshiisa ha iga jooga. cala ayta xaal haweenaydan ninkeeda way iska furtay. sidoo kale waxay dhahday hadda diyaar uma ihi waraysi, dadkan imaanayaan waraysi maxaa iskaaga furtay balabala iyo waxyaabahaas. waxay dhahday dadkaas diyaar uma ihi, anaa bateeda i haysato, ninkan oo madooga sida loo galay ayaan u murugsanahay aniga iyo familkeygaba, marka murugteyda aan ku jiraa ee ammaan isiiya. muuqaalada sidan oo kale ayay ahaan doonaan, waxay ka sheekeynayaan dhacdooyinka dhacay bishan ama wiigan lasoo dhaafay. marka waxaan rajeynaya inaad ka hesheen, haddii aad ka heshay la wadaag asxaabtaadii ama u sheergarey. marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaam. kow labo saddex. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dowlad ayuu adaa soo aduurka u dhawaado. meeshaas ayuu ku noolaa muddo dheer, ninkan oo leedaha markuu noqday nin 98 markuu noqday nin waayeel ah oo da'diisa gaartay 98 sano jir ah, markuu noqday nin waayeel 70 sano ayaa laga soo wareegtay. inay noqotay shirkad u furan farmashooyin. shirkaddan marka hore waxay soo saari jirtay daawooyinka, balse maanta waxaa u furan $1,000 ayuu bixiyey 70 sano ka hor. maanta waxay noqotay ama waxay u gaartay ama waxay u dhashay 70kii. $1,000 ayuu bixiyey 70 sano ka hor, balse 70 sano ka hor ayuu wuxuu bixiyey $1,000, maantana waxay u gaartay ama waxay u dhashay $1,000. lacagtaas ayuu helay hadduu shaqada ka fadhiis, lacagtaas ayuu helay shaqadii dhan ayuu ka fadhiisanaa, khalaas nolol. ninkan oo la yiraahdo Ross Gremel wuxuu aaday ama wuxuu la xiriiray urur ilaaliyo xayawaanada duurjoogta. ururkii waxay sameeyeen lacagtii ay qaateen waxay gateen dhul ama waxay u gadeen xayawaanada ayaa waxaa loo gaday dhul.
dhul weyn ayaa loo gaday oo afka carabiga lagu magacaabo la yiraahdo meeshan waxaa loo bixiyey magaciisa Gremel, Ros Gremel.